السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وأنا ومركل إذا كسر نقضي سيدي عادة إنه هينا موقع عصب إذن وضع موضوعنا ما أنت وحوي ترتن أن لقلنا سين ديمقراطية إن جيل يحسب جيسة ما نكوجو ليسان كرنا هرينا ما لسكو دي إن حسبية معارض إن ضل بدأ توضع النقدان أو إسباحيستان سي ولا ترتمان حسبية أما تلاد حسبية تلاد هي مركا سيدان uga jawaabna taas waa inaan taariikhda dib aanu milicsano 1999 ayaa ugu horeysay dallad ay sameystaan xisbiyada mucaaradka Djibouti waxayna hoos imaadeen ay horseed ama hogaamiye ka dhigteen marxuum Muuse Axmed Idris Allahu naxariiste waqtigaasna way ku guuleysteen oo way ka badiyeen ina geele iyo xisbigiisa aga jugleen iyo absigelin loo geystay awgeed ayaa la yiri walidi ka badiyay iyagana waxay ku jawaabeen waxba gacbaha laabteen barkood baa yiri waraas kala aan la shaqeyno taliska inta dalka qalalaasa garin lahayn kolka mudaharaad la sameeyo lagu muujiyo in la khiyaamay iyo in qori la qaataba waxay ka door bideen in la shaqeeyaan taasina halkeena keenta waa idinka arkaya waxa ku xigay 2004 isbahaysigii kale ee labaad ee la sameeyay xisbiyada mucaaradku ay sameeyaan taasina waxba ma keenin allayle 2013 dalladii USN ayaa noqotay mid gilgisha ina geeli taasina halkay ku dambeysay waan wada ognahay haddaba annagoo halka ka dhaqaaqayna oo aqoonsan in si dimuqraadiyada aan kaga badin kareen ina geeli iyo xisbigiisa waxaan fariin u dirayaa BSN iyo shacabka reer Djibouti wadada qura ee noo bannaan aan ku guuleysan karno waxa weeye kacdoon joogto ah ilaa Aramus sidaana waxaa la yeeli haddii ay daacad naga tahay rabitaankan lagu doonayo inuu isbedel ka curto dalka in la iska qaado taliskan macangaga ah ee dhinac walba ka fashilmay